asxaabteedii maanta waxaan wadaa daawooyinka oo nabraha bixinayo oo doktorkaaga kasoo qaadanaysid oo aad iyo aad u fiican. waxaan leeyahay soo dhawaada eena daawasho wacan. assalaamu calaykum, soo dhawaada. waa walaashiina Samira Beauty and DIY. asxaabteeda qaaliga waxaan wada rajaynayaa meel kasta adduunyada cadays ka joogtiin nabad iyo caafimaad iyo farxad biidni illaahi alkariim إن شاء الله. أصحابتي دقالقة سو دواداني ليهاي مانتا وحاني وضا داوين والدكتور كأنكسو قاطو ونبراه بحنايو واكس برنامج كمانتا انتا سواي وقادا سو دواداني ليهاي أصحابتي يقو عصب هذا يقو عصب تهاي فضلا سو دوابان كليهاي channel كسبسكرايب إيسار قنبلال كفرو سيدا فيديو كستان سوبي كوغسو دعان aad ila socotid asxaabteeda qaaliga aan jeclahay maasha allah tabaaraka allah. comment like gareeya share gareeya insha allah comment qurux badan ka soo bixiya wixii fikradiina eena ku soo qora. aad iyo aad aniga mahad celinaya aad iyo aad u mahadsantihiin sidii qurux badan oo wanaagsan oo ila socotin asxaabteeda. soo dhawaadaan ilaahay asxaabta igu cusub iyo asxaabteeda hore ila joogeen maasha allah qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada. maanta barnaamijka waxa waaye daawooyin oo doktorka laga soo qaato oo wajiga oo nadiifinayo oo nabraha immune systemka marmar waxaa jirta marka oo maqaarka xataa ma ahan wajiga kaligiisa waxyaalo cunto cunaysid iyo immune systemka iyo maxaa la dhahaye hormoneska iyo waxyaalo oo jirta isbedelo bini aadam haddaan nahay immune systemka iyo waxyaalahaas marka isbedelaan waxyaalo waxa arkaysa oo cajiib ah oo wajigaaga nabro kusoo baxbaxay iyo waxyaalahaas waxa loo baahan yahay nabrahaaga hadduu ragilo oo kusoo noqnoqonayo waa inaad doktorka u tagtaa oo la sheekaysataa oo dhibaatadaada u sheegataa oo wuxuu kugu soo caawi karo oo kugu soo caawiyo daawooyin kala noocnooca jiro oo nabraha bixinayo oo hormoneska dejinayo especially naagaha oo markay ilmo dhalaan ama markay ilmo dhalin marka hormoneska isbedelayo labada marba isbedeshaa markaasoo baaluqaysid iyo markaad oo hooyo naqatid hormoneska labada dhinac wuu isbedelaa waa kaas saas ogaadaa. haddana waxaan rabaa inaan ii tuso oo la qaybsado daawooyinka oo aniga isticmaalo oo nabraha oo wajiga bixinayo waa laba shay waayo oo doktorkayga isoo siiyey doktorka isoo qoray dukaankana maka hel farmashiyada maka gadi kartid ilaa oo intoo doktorka usoo qoran leh waayo. so maanta waxaan rabaa inaan iga faa'iideeyo inaan ii tuso kaniiniyaalkan aan qaato iyo jeelka aan nabarka markuu meesha kusoo baxo oo la marinayo oo markuu nabarka kasoo baxo jeelkaas waxa waaye antibiotic iyo waxyaalahaas oo wata daaweyn oo loogu talagalay oo dermatologist ay suubiyeen oo nabraha skinka u xisaabsan. kaniiniyaalkana saas waaye hormoneska dejinaa iyo stresska iyo waxyaalaha cuntada aa cunaysid calooshana wuu ku nadiifinaa. kaniiniyaalkan waxa waaye markaa cuntid musqulna waa ku geenaa calooshaada ku nadiifina skinkana waa ku nadiifina nabro iyo adiga ma is arkaysiin. waa kaniiniyaal aad iyo aad u fiican. hadda kor waxaan tijaabiyey doktorkayga soo siiyey 3 nooc. noocan hadda kan ugu dambeeyay waa kii saddexaad ay anfacay jismigayga hormoneskayga ula qabsaday laakiin labada kale ka horeeyay ma ugu soco jirin waa iska bedeli kan waa kuwii ugu dambeeyay wani anfacay waqti dheeraan hadda isticmaaloyaa aad iyo aad u fiican yihiin. soo asxaabteeda waxaan leeyahay adikana doktorkiina u taga haddaa problem yaal oo waxaas qabtid oo nabraa oo ka bixeenin oo kugu soo noqnoqonayo waxa u baahan tahay inaad doktorkaaga u tagtid oo xaaladaada u sheegtid sidii dhibaatada ay ku haysato. so insha allah hadda waxaan rabaa inaan ii tuso daawooyinka insha allah oo nila qaybsado insha allah intaan hadda barnaamijka aan bilaabin waan ugu soo celinayaa. haddaa igu cusub tahay fadlan channelka subscribe isaar gambaleelka furo sidee markastaan filim suubi kugu soo dhaco waa inaa oo channelkan insha allah wax badan aad ka faa'iido doontid gudahana hore u sii gal insha allah. soo dhawaan ku leeyahay gacmo furan ku soo dhawaab asxaabteeda hore ila joogana maasha allah iyakana ma loo sheegayo waan isoo xasuusinoyaa leeya ya maasha allah asxaabteeda oo i jeclo anigana aad iyo aad u jeclahay asxaabteeda adikana waa kaas insha allah share gareeya comment qurux badan ka bixiya like-gana saara insha allah. haddana waxaan bilaabayaa daawada oo kooga waxaan ka bilaabayaa kaniiniyaalka. kaniiniyaalka waa kan kaniiniyaalka waa san sida ujeediin pinki oo ku imaadaa marna guduud
laba kalar waaye laakiin waa isku daawadii le boxkan waaye boxka sidaan i tusaayo haddaa oo screenshot ka qaata masawir ka qaata ee doctorkaaga tus haddaa waxyaalo kale oo hore u baroweysay oo ku anfici waaye kan iska tijaabi kan ani aad iyo aad ugu socdaa wuu fiican yahay is very nice daawooyinkiisna waa khafiif waa 250 milligram laba xabo aa ka qaadanaysaa subaxdii laba xabane haweenkii aa ka qaadanaysaa hormoneska dhan wuu dejinaa calooshana wuu ku nadiifinaa wasaqda caloosha fadhisa dhan mush ku soo tagaaya taasna waa muhiim wasaqda cuntada la cuncunaayo mar bini aadam haddaan nahay markas wax oo different aan iska cunnaa hilib ahaato waxyaalo saliid le iyo waxyaalahaas markuu saliidaada iyo waxyaalahaas oo cuncunoogiisna badan yahay wejigana ma nadiifsamaayo soo kaniiniyaalkan wuxuu ku fiicanya markaa qaadatid muskusha caloosha dhan wuu kusoo nadiifinaa waa gelaysaa hal maraa soo dhigaysaa ma ahan wax oo muskusha u naqnaqanaysa ma aha hal mar markaa qaadatid saacadooyinka soo wareegato muskushaa tagay hal mar soo nadiifine bas meeshuu ku joogsanaa haddana haweenkii saas intaa seexanin bini aadam haddaan nahay laba mara loo baahan muskush ka gashid subaxdii iyo haweenkii intaa seexanin inaa muskul oo kortid muskush mala koraa mala fadhiistaa ma oge muskul korow aan maqli jiray oo la galaayo oo soo saxaroonaysid saxarada dhan wuu kaasoo bixinaa oo wasaqda kugu jirto caloosha ku fadhiso sidaas ogaada kaniiniyaalkan waa very nice waan ugu soo dhaweynayaa screenshot ka qaata waa kaas mujeedin kaniiniyaalkan aad iyo aad u fiican tahay dukaankan maka helaysid waan ugu soo celinaa because waa huwa inaa soo weydiinaysiin ma gada karnaa maya ma gada kartid waa inuu doctor kuusoo qoraa xaanshada farmashiyada ula tagaysaa markaa farmashiyada ula tagtid kadib waa lagu siinaa daawada hadduu available yahay waa lagu siinaa markii oo qaadanaysidna hal mar ha qaadana ha dhigin waxaa dhehaysaa iga dhig repeat prescription waxaa laga wadaa daawada oo bilkas uu naqnaqanaysid formaa jirtaa la buuxiyo formkaasaa buuxine waxaa dhehaysaa bil kastaan u baahana bilkas waa qaadana waa tegaysaa waa soo qaadana markuu diyaar ku yahay ma u baahantid inaad doctorka ku naqnaqatid oo markas balan dhigatid oo tagtid oo daawooyinka u dhahad haddana isii hal mar oo kuusoo qorayaa GP-ga maxaa la dhahaa meesha la tago oo caafimaadka markaa tagtid waxaad dhehaysaa inaa daawadan aa layga dhigo repeat prescription form yar ay ku siinayaan waa la buuxina farmashiyada gene farmashiyadana saasay ula soconayaan iyakana bil kasto waa tegaysaa ama waa lagu soo wacaa ama taxi message lagu soo qoraa waxaa lagu dhaha daawooyinkaa waa diyaar kaala qaado kaniiniyaalkan aad iyo aad u fiican yihiin dhexdiisaan ni tusaya asxaabteeda waxaan rajeynaa inaa si fiican ni fahansii waa kana qaar waa qaat mujeedin eber waaye laba xaba uu ku imaadaa baakadii kan kalarkiisa waa saas ya kalarkiisa pink ama because baakada uu ogyahay marka oo inta wuxuu ku imaadaa guduud marna pink saan ya so saddex nooca kala jiro nooca kale waxaa u malaynaya inuu bulug oo yahay ama something like that inuu yahay waa aad iyo aad u fiican yahay infectionka hormoneska caloosha wasaqda fadhisto waxyaalahaas dhan oo kaale arag jismiga dhan oo ku nadiifina skinkaaga dhan wuxuu noqonaa nadiif adigoo dhan nabro iyo adiga mas arkaysin mar kale insha allah so waa kaas asxaabteeda waxaan jeclaystay inaan la qaybsado waqti badan aan rabo inaan suubiyo dad badan ay soo weydiiyeen laakiin maanta ii suurta gashi inaa oo filan oo niga soo suubiyo daawooyinkan qaata kaniiniyaalkan is super nice aad iyo aad ugu fiican especially for break up and hormones stresska maxaa la nabro bixeenin caloosha dadka oo muskusha galaynin waxyaalahaas u fiican tahay jeelkana waa kana jeelkani bilaabaya jeelka aad u fiican yahay wejiga dhan ha iska marinin jeelka waxa waaye meesha nabarku ku yaala bis aa marinaysaa markaa furtid gacantaada ama qaada ama kan dhagaal ugu tirtiro gacantaadana ha saarin infectionka iska ilaali waa saaraysaa markaa dhibac mar haddii nabro oo wejigaaga ku badan yihiin dhibac saaraysa wuu ku qalalaa jeel cam haddana waa pilgareynaya jeelkiisna waa jeel oo cad ma ahan jeel oo clear ma ahan waa jeelkiis waa ka saasoo usubsan yahay sidii cream cam waa ma fahanteen sidii cream cam waa jeelkiisa soo asxaabteeda jeelkiis usigana magaciisa saana lahaa usugoo baakadan intusaa because kan waba buusmade waa furaya seeb waada kan waa kan kale aan soo qaate baakadii aan ka bixinaa sidaa oo magaciisa uma sawirtiin waa kana mujeedin saana uma sawirine doctorka ula tag tus ya baaka yaraa jira iyo baaka weyn kan 60 waaye 60 waa sida ujeedin jeel
and jeelkan aad u fiican yahay wajigana uu ku nadiifinaa maxaa lahaa nabraha isla markii haweenkii markaa saartid subaxdii diyaar u yahay malaxda dhan wuu soo dhuuqaya saas u soo bixinaa malaxda meesha fadhiso ku cuncunayso xanuunka oo marmar waxaa jirta finka inuu waqti iska qaato inuu soo dilaaco infante degdeg uu soo dilaacina wajiga dhan uu ku nadiifinaa ogaada taas ya so daawadan jeelkan aad u fiican yahay jeela ku qoran meesha and baakadan oo exactly saano kale oo u jirsada insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen baakada masiir ka qaata ee doctorka ula tag hadii oo problem badan oo ka haysto wajiga oo nabro bixeenin kareemka kaligiis leem ah wajigana ha ka ilaalin saliida ha ka yareenin markaas hadii isdhaahdo wajiga nabraan leeyahay saliidan waa ka ilaalina ma anfacayo taas waa ina wajiga hydrate ina siisaa waa wajiga inuu jilacnaada hadaa wax kasto saliid le ka dhoortid nabrihiina way soo badanayaan wajigana dry wuxuu isku bedelayay saliid so wajiga waxa fiican ina hydrate gareysid jeelkana aad u fiican nabraha wuu bujinaa nadiif nabarka dhan meesha madow ku dhigaa isla markii wuu mugdina the next day waxa ku soo kicisa isugu madow naqdiyo meesha ku dhari intuu malaxdii iyo balaayada iyo waxaas u dhalay ma fahamteen asxaabteeda qaaliga so waxaan rajeynayaa inaan si fiican oo ni fahansi insha Allah inaan si fiican isku fahanni oo ni fahansi waxaan jeclahay wax kasto ana ii fiicnaan in la qaybsado asxaabta qaaliga ma fahanteen aad aan jeclahay adikana waa jeceshiin ma sha Allah tabarakallah sidaas la rabaa insha Allah sida kasi fiican filinkaana share gareeya asxaabtaada qaaliga ula qaybso walaalaha ula qaybso jiiraanka ula qaybso insha Allah so asxaabteedii intaan iga baxaya filinka intaan kusoo gabagabeynaa insha Allah wax kale oo fiican oo qurux badan aan iskugu soo laawaneynaa waa walaashina Samira Beauty and DIY waxaan leeyahay fil amaanillah سلامة إسلام تنوق مع السلامين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأمان الله.